arrin aan hore looga baran kaftanka siyaasada laakiin dadka u noqon karaya digniin iyo inay wax sii ogaadaan sax oo laga sii hortago haye ciidamada al-shabaab oo meel ka mid ah Soomaaliya dhex maraya oo ku fool leh meel aynu tilmaami doono ayaa sirta caynkaas inagoo gabagabadii barnaamijkeena aan hadda gudagali doono ayaan waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo sidii hore aan dadkeena daawan ugu ballan qaaday kooxda al-shabaab oo dhul ay mareen iyagoo guuraya aan rabo in aan deegaanadaasi dadkii gaarsiino waa sax kooxda al-shabaab afur meel ay dhahdo ay soo weerareen maal dhaweyto dad tiro far badan ay ku laayeen oo ciidamada Puntland sax dibkii meeshii wuu taagan yahay haddaba xalay saqdii dhexe ayaa ciidamo guuraya oo al-shabaab oo buurtii ka yimid ay soo dhex mareen dhul ama deegaano dhinaca ceergaabo aan idhaahdo aaga meesha la yidhaahdo hadaaftimo ayaa lagu arkay 8 nin oo aad u hubaysan oo kooxda al-shabaab ayaa dad reer miyiga weydiiyey meesha ay ceergaabo ka xigto ceergaabo socdaaba ilaa anaga wax ragnahay dabeetana dhinac bay ka mareen degmada haye dad baa markaa soo arkay oo ay la hadleen oo ay directionka weydiiyeen haye nimankii baabuur baa u timi dabeetana dhinaca ceergaabo ayay afka saareen haye nimankaasi waxaan uga digaynaa ummadda deegaanka soo dhani in ay standby ay galaan oo ay ka feejignaadaan maamulka Somaliland especially uu la socdo dhaqdhaqaaqaas oo ah dhaqdhaqaaq aan la dhayalsan karin oo dhibaato keeni karaya xogta dhabta hadii aan sheego waxay u socdaan oo ay tagayaan meel la yiraahdo beer burco xagga ka toosan marka buuraha golis ee taxan dhinaca sanaag ceergaabo ay ka samaysanayaan fadhiisimo waxay kala tagayaan beer meesha la yiraahdo sida macluumaadkan sirta aan ku hayno cidna ma dilin cidna ma maagayaan laakiin waxay doonayaan meel ay degaan in ay fadhiistaan waxay muujinaysaa in khilaaf uu ka taagan yahay iyaga iyo dadka deegaanka galgala marka in qayb kamid ay soo guurto ayaa meesha ka muuqata marka dal la fasiro socodka caynkaas habka ciidan dadka area jooga ee shicibkii isma difaaci karayaan oo ma aha ciidamo waa dad qoriyo wadista haye marka de ciidan haysata umba ka hortay karto ciidamadaasi ilaa 8 qof oo hubaysan ayaa imika la og yahay waxa ku daba jira kuwa kale oo kuwan marka ay meesha sii tagaan ay iyana ka daba iman doonaan waxaan dhageysan doonaa cod haweeney hadaaftimo joogta oo dadkii soo arkay ama gabadhii soo aragtay mid kamid ah iyadoo la joogtay oo magaceedana aynu qarin doono si aanay dhibaato ugu iman laakiin codkeeda si dadku ay u rumaystaan aynu u soo gudbin doono marka bal aan u soo gudbiyo haweenada way anagu xalay markii aan yara jiifsanay oo tobanadii ahayd ba gabadh odaysa magaalada timi ay nimanka hala kale marayaan waana rag haddaan qiyaasna ilaa 8 marka warkii aan qasti gabadhii nimankii bay ku soo dhexdhacday nimankii waa la kala yaacay meesha hub lagu ma haysto raggu hub ma haysto nin aan hubeysanina dagaalami maayo oo afartii qoriyo la hayay nin waliba ciidamo iyo dhul baa lala aaday waa tidile ciidamayn jiray oo afartii huwa daqa afartii qoriyo haray dawaa wala walba meel baa meeshii la hadba furino la joogay bay la tagtay hadday la tagtayna de maxay haytay meesha waxaan joogaa horta hadaftima waxa jooga waa ciyaal iyo dumar yaa faraday oo kii waay ragii waa ka tagay waa in dooftay iyo in xeebaha jirta iyo in hargeysa taagan iyo in xamar taagan iyo inta afar kaleena waxa joogaan la baran la boosaaso horta waxa jooga hadaftima waa dumar iyo caruur xaafadina waa maran tahayba xaafad waxa u soo hoyda marka 10 guri dhaafid hal guri lagu jira waxa xaafadi waa cidla waa laga wada dhoof marka horta dhibaatadaasi waa jirtaa mid kale waxa la idin ragii goorta yaaceen oo maxay kula hortagaan nin hubaysan oo bombadiisito oo qorigiisito oo baadkiisito de wax walba sita lama dagaalama kartid alqasti nimanka hadaan u darnay nimankaas waxa weeyaan kullu waa niman reer waqooyi ma aha nimankii koonfurta
waayo sababta baabuur baa ka daba waaya marka waad maqlaysa warka Soomaaliya baabuur baa markaa nimanka u timi oo qaaday ayay gabadhan leedahay waxaan markale uga digaynaa dadka barnaamijkan daawanaya ee ku dhaqan areas laga sanaag ilaa togdheer in ay ka feejignaadaan oo ciidamada ammaanka ay waliba Somaliland ay soo gudbiyaan haddii arkaan ciidamo ama dad wada socda oo hubaysan oo fara badan oo ay ka shaqeynayaan haddii arkaan